السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك أصحابتيda aadan ugu faraxsan inaan dib isugu soo laabano mar kaleeto. Waxaan qaadanay maanta tradekaas oo aan ka qaadanay AUD USD taariikhda markay ahayd 3 Maarso today. So tradekan run ahaantii waad sidaad aragtaan baad aragtaan waa midka shaashada noo saaran aan saacadan habeen barkaa idiin soo duubayo run ahaantii taraawiixan hadda ka imaado xoogaa banankan isku soo qaato waxaan islaa tradeka sacan TP uu kugu dhaco balse waxaan arkin inuu dib igu soo kala firiyay marka mararka qaarna ruleskaga aad raacdo waxyaabahay kaa caawinayso waxaa kamid ah maanta aniga tan i qabsatay because of aniga inta ugu badan tradeda aan qaato waxaa u badanahay inaan take profitkeyga ka qaato 3%. So tradekan markii aan galay 3% waxaan ugala bixi macnaha waajibkeyga hadda wuxuu ahaa inaan kala baxo markuu suuqa marayay probably this place. Yep. Meeshan markuu maraya suuqa inaan ka baxsado $3,000 ay ahayd but unfortunately waxaa dhacday inaan greedy noqday inaan aan xoogaa isdhahay bal waa hayi karta tradekan high ilaa laga gaari doono imbalancegaas but tradingka wuxuu ku baraya you don't have anything guarantees ah waxa gacanta markaas ku haysid inaad suuq kala baxda qurux badan ma fahanti ba haddii TP loogu dhici lahaa wax qurux badan ay ahaan lahayd but ruleskaga inaad raacdo mararka qaar waxaa waaye aad ay u qurux badan tahay so 3% is not something small, it's very nice amount of money but it's okay maanta way dhacday waxaa waaye marka tradekan sababtaan u qaataan rabaa inaan idiin sharxo si asxaabta maalin maalmaha kamid small money concept marka ku tixgelinaysid tradeda aan qaadan inta badan way iska daba dhow yihiin way isku eg yihiin waa trade isku eg marka tradekan trade lamid lacala haddii uu ka hor imaado si aadan adigana waxaa waaye aadan oosan kaaga fakan aan rabaa insha allah in inagana aad igala faa'iidaysataan marka high time framekeygan kasoo bilaabay which is 4 hour. So 4 hour inta badan waxaan u adeegsadaa directional suuqa directionkiisa jihada suuqaan u adeegsadaa dailyga iyo 4 hourka waliba waan isleeyahay laakiin waxaan zaaid ugu badanahay waa 4 hour inta ugu badan YouTube channelkeyga muuqaalada soo dhigan waa ka arki kartaan 4 hour time framekan zaaid ugu badan inaan joogo markaas because of waa time frame degan wax walbana aad si nadiif u arkaysid kuma wareeraysid there is no a lot of noise so waxaa waaye wax dhan clear ahaan ku tusinaya marka 4 hour time frame markaan imaado wax kaliya aan ujeedaa dartaa waxaa waaye anigoo gadaalba aanan tegaynin meeshaan waxba igama jiro wax kaliya hadda aan la socdo price action hadda socdo so price action hadda socdo waxaa meeshaan uga jeedaa inay dhacday break of structure to the upside which is very nice to see so waxaa la sameeyay suuqa high so suuqa waxa hadartan hogaaminaya waa Logan ilaa iyo highgan intina isla fahanna rajaynaya kadib aan guda galayna inta kale suuqa waxaa dhacay break of structure waxaa sameysma high cusub highgaas loogi sameeyeyna waa kana so demandyaal badanaa soo galaya markii high la sameeyo door demand soo galaya so demandyaal badanaa soo galaya suuqa demandska soo galaya marka waxay u kala qaybsamayaan demand adag oo extreme ah oo aad qurux badan oo wax walba confluence leh iyo demand oo la dhaho decisionals waxaa kamid ah decisional order blocked waa kana because of wax liquidity hadda demand kale malaha wax lagu darto oo dhan malahan but mid kale taa ka hoose isagan aad u qurux badan markaad fiirisid laakiin oo laga qaadan karo trade but sidaad aragtaan guys in inaha aan la salaaminayo xataa meesha uga jeedaan oo toos looga soo dhaxbaxay liannahu wax kale ma ahan demandka imbalance waxaa waaye imbalance no there is no imbalance ma lahan meesha ku fashilmay midda labaad oo ku fashilmay waxaa waaye hoostiisa haddii aad aragtaan waxaad uga jeedaan equal lows so equal lows means there is a liquidity to the downside so liquiditygan so wuxuu u shaqeynaa sida magnet oo kaleeto suuqa waa waxa grab waxa dhaqaajiyo waa so wuxuu usoo ordaya inuu qaatay ahayd so markii aan arkay markii liquidity aan soo qaatay labadan demand lan soo fail gareeyay oo liquidity ay xataa lagu darsaday demandkan ayaan calaamadaystay kadib demandkan markaan mitigation lagu sameeyay waxaan tagay marka 15-minute time frame so 15-minute time frame is my entry time frame inta ugu badan tradeyadeeda aniga entry waxaan ka qaataa 15-minute ma jecli inaan hoos uga sii dego because of way isaga jiraan dadartaan 1 minute 3 minute oo kale but zaid uma isticmaalo waxaan entrygeyga ka qaataa 15-minute mararka qaar oo laga yaabaa inaan 5 aado laakiin 15 is the best so maxaan arkay markaan 15-minute time frame imaado
soo noqod wanaagsan guys, xogaa yar qadkaa naga cuslaaday, so stop aan dhahay. Marka waxay noo mareysay 15 minute time frame markaan imaaday oo entry time framekeyga waxaan u baahnaa suuqan bearishness-kiisa aad u awood badnaa oo ku socday low lows and low high in first of all lagu sameeyo change of character. So change of character waxaana lagu sameeyaa halkan waa lowgi waa this is the last high which make this low. So lowgan highgi sameeyey ayaa waxaan sugaya in lagu sameeyo change of character. So waxaa dhacday in momentum buys soo galo kadibna ay jibiyaan, kadib Asian sessions baa soo galay, kadib Asian sessions waa socday, and then guys sidaad aragteen halkan waxaa ku yaala demand aad u qurux badan but waxaa lagu sameeyay mitigation markii lagu guda jiro Asian sessionka. So waxaan sameeyay refinement wax loo yaqaano, waxaan u degay 5 minutes. So 5 minutes markaan aaday waxaan arkay, as you guys can see it, in si nadiif loo arki karo, this is the last bearish candle before the move up. So waxaan ku waxaan ku sameeyay refinement, and then demandkan quruxda badan ayaa soo baxay. Kadib 15 minute time framekeyga dib ugu laabtay. So 15 minute time framekeyga markaan dadana dib ugu laabtay waxaan arkay in markii lagu sameeyay mitigationka kadib lowgan haddana marka lagu sameeyay sweep of liquidity. So lowgan keliya sweep of liquidity laguma sameyn, lowgan wuxuu ahaa sidoo kaleeto Asian session low. So sidaad ogtihiinba Asian sessionka highgiisa iyo lowgiisa of liquidity ayaa yaalo. So ayadana waxay ahayd confluence kaleeto aad u qurux badan. So waxaan sameeyay marka wax yaraan sugay markii liquidity grapkan la sameeyay, wax yar baan sugay ilaa ay iga soo baxdo adiga at least one candle. So one candle kan sweep ka sameeyay maahan, midkan kaleeto markuu soo baxay entry ka qaatay. As you guys can see it before, this is the before. In candlekan kaleeto markuu soo baxay kadib aan trade ka qaatay. So markaan retracement maray sameeyay ahayd gadaalana suruq ka qaaday, and then guys the rest is history. Si qurux badan trade kan noogu baxay. Wax kaliya aan u baahnayn ayaa waxay tahay inaan greedy nimada iska dhaafno aan 3% geena suuqan ku baxsano, caawana 3% profit la seexano. But it's okay, beris waxaan soo qabanaa anagoo sida si ka awood badana insha Allah bidnillahi kariim inaad wax un ka faa'iideyna rajeynaya. So assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Haddii uusan YouTube channelka subscribe ku ahayn, subscribe leh. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh guys.